wasaarada kala duwan baan la kulmay sida wasaaradaha runtii aad u khuseeya arrimaha community-ga Soomaaliyeed sida wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda qorsheynta dhowr wasaaradood kala duwan baan la kulmay muhiimadda ugu weyn oo aan ka wada hadalnayna waxay ahayd sidii si wada jir loo wada shaqeyn lahaa oo dowladda Soomaalida iyo maxaa la yiraahdaa dowladda Norway ay oo hadda aad u danaynayso arrimaha Soomaaliya loo wada shaqeyn lahaa department-yada la kulanay waxaa kamid ahayd immigration-ka runtii hoos timaada wasaaradda cadaaladda waddankan hoos timaada waxaana jira waxyaabo fara badan oo dadka rumors ah oo meelaha laga sheegay balse annagu inaan dadka Soomaaliyeed oo ama gudaha jooga ama qurbaha jooga inaan saacidna maahane marna tala ah maana qaadan in la yiraahdo dadkii tala aruuriyo meelaha la isaga daadiyo waxyaabaha wali baan uga dignay waxaa kamid ahaa dalkan uga dignay immigration-kooda inaysan ku degdeginin in dad Soomaaliyeed inta la aruuriyo la isaga daadiyo meelo kala duwan oo Soomaaliya kamid ah oo ay suurtagal noqon karto dadkaas inay dhibaato soo gaarto ama lagu dilo si hadda ka horba dhacdayba waxa weeye maxaa la yiraahdaa mar walba waxa anagu aan nahay oo aan metelnaa shacabka Soomaaliyeed ama ha joogan dibadda ama ha joogan dalka gudihiisa waxyaabahan kala hadalna waxaa kamid ahaa dhalinyarada dadka Soomaalida ah oo carruurtooda la iska qaadanayo oo mar kastaba iyadoo aan si sharci ah loo soo marinin laga qaadanayo carruurtii qoyska laga qaadanayo oo la geynayo ciido kaleeto iyo meelo kaleeto iyadoo marna aan la tixgelinin culture-kii Soomaalida iyo dhaqankii iyo diintii midna saacada wasiir waxaa jirta mararka qaarkood dadweynuhu hadda saad dhawaajisaba isla dhexmarayeen inaad sameeynaysa immigration-ku inuu dadka celiyo iyo waxyaalahaas magaalada Oslo inta badan dadka isla dhexmarayeen taasi waxaad leedahay Soomaaliya waxba kama jiraan sirn ahaantii waxa weeye arrintaas meel ka timaado ma aqaano waxyaabaha aan ka hadlaynaa waxaa kamid ahayd in dadka halkan jooga oo dhibaatada ku haysato oo la leeyahay ladima cadeyn karina Soomaali tiiniin kaleeto inay dowladda Norway ogolaato in anagu cadeyn inay Soomaali yihiin oo aanay dhibaato loo geysan balse haba yaraatee ma jirto sida loo fasiray inaan anagu aan barnaamij wadana ah dadka la celiyo arrintaas waa arrin aad meel ay ka socotaan aan aqoonin bal anaga waxaan ka wada hadlaynay in immigration-ada wada shaqeeyaan oo la xoojiyo amniga dalka laga wada shaqeeyo oo ay Norway naga caawiso sidii immigration-ka hore u mari lahaa balse ma ku jirto haba yaraatee qorshahayaga dad Soomaali dib loo celinayo horeyna uma dhicinin haddana ma jirto kuwa badan oo la soo celiyay oo la keenay oo dib loo soo celiyay waa jiraan waan ugu soo celinay dib ugu soo celinay wadamo kale laakiin barnaamijkaas waxaan u maleynayaa inaysan ahayn barnaamij haba yaraatee qorshaha noogu jirin